Hello, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maalin qurux badan, maalin wanaagsan. Kusoo dhaw Modern Online College. Waa college waxa weeye markaasi si free ardayda markaasi ay ugu bartaan qaybaha kala duwan ee waxa weeye computerka iyo waxa weeye Englishka intaba. So maanta casharkan waa cashar markaasi questions and answers sida halka idan kaga muuqato. waxaan ugu tirigalay inaan ku caawiyo waxa weeye ardayda Soomaaliyeed ee ku guda jira barashada luqadda Englishta. Maanta oo kale waa maalin Isniin ta waxa weeye sidaas darteed maalinta Isniinta inta badan iskuulooyinka private waxa markaasi jadwalkoodu uu yahay in la sameeyo waxa loo yaqaan oral practice in la sameeyo. arday kastana waxa weeye tabartiisa misan awoodiisa marka uu waxa weeye uu soo bandhigo. waxaan doonayaa marka ardayda inaan ku caawiyo markaasi su'aalooyin general aan soo aroori waxaan u gartay su'aalahan inay yihiin su'aalaha badana ay jecel yihiin marka ardayda isweydiiyaan. Okay, su'aasha horeyso waxa weeye do you know how to speak English? ma garanaysaa sida Ingiriiska looga hadlo? Ingiriiska sida looga hadlo ma garanaysaa adigu? haddii su'aasha lagu weydiiyo jawaabta aad bixinayso waxay noqonaysaa this question has not any answer. wax jawaab ma laha because I didn't stand here ani halkan ma soo istaagi lahayn if I don't know English. haddii Ingiriiska aan aqoon lahayn aan garan lahayn halkan ma soo istaagi lahayn. way su'aasha lagu weydiinay maxay tahay? sababta waxa taaganta ardayda hortoodii waxaad baranayso waa English. haddii marka su'aashan lagu weydiiyo sidaas aad ugu jawaabi kartaa misan sidii markaasi adiga aad u garato inaad ugu jawaabto kale aadna ugu jawaabi kartaa. laakiin anigu jawaabtan aan kugu caawinaya oo okay su'aashani ma laha wax jawaab sababtoo ani halkan ma soo istaagi lahayn haddii aan aqoon lahayn misan aan garan lahayn Englishta. Okay, su'aasha labaad adiga waxa weeye saaxiibta mise saaxiibka aad weydiin kartid waxa weeye do you know how to make practice? ma garanaysaa sida waxa weeye wuu shaqaysiga loo sameeyo. waa ardayda qaar waxa laga yaabaa uu shaqaysi nidaamku uu shaqaysi inaysan aqoonin sharciyadii ruleski inaysan ilaalinin oo waxa weeye ardaygii number 1 oo si markaasi qaldan uu istaago misana waxa weeye codkiisa inuu ka dhigo cod aad u liito. su'aashan waxa markaa waxay ku leedahay do you know how to make practice? ma garanaysaa sida uu shaqaysiga loo sameeyo ma garanaysaa? oo maxaad ku leedahay marka adigu jawaabta aad bixinayso waxay noqonaysaa of course yes طبعا I know how to make practice splendidly. Okay, I know how to make practice waxaan u garanayaa sida loo sameeyo wada sheekaysiga splendidly si wanaagsan oo qurxoon and how to attract iyo waxaan garanayaa sida loo soo jeedinayo the audiences dhageystayaasha. Okay, waxaynu gudbaynaa su'aasha kale waxay ku leedahay iyaduna why are you in this class today? maxay tahay sababta maanta fasalkaad u joogto? haddii su'aasha lagu weydiiyo waxay tahay maantuna waa maalin Isniina sax maalintuna waa maalin Isniina sidaas darteed su'aasha lagu weydiiyo waxay tahay maalinta Isniinta sidaynu wada ognahay private waxa weeye cashar lama qaato waxa la sameeyo oral practice sax. haddii su'aasha lagu weydiiyo lagu yiraahdo why are you in this class today? sababtee baad u joogtaa fasalka maanta? haddii lagu yiraahdo maxaa leedahay today maanta waxaad ugu jawaabaysaa today maanta I am here waxaan u joogaa halka to test my English capacity inaan tijaabiyo awoodayda Ingiriisiga inaan tijaabiyo and also sidoo kale I am here waxaan u joogaa halka to give you unforgettable lesson inaan kuu dhigo cashar aan la ilaaweynin. Good, sidaas baad ugu jawaabaysaa haddii ay macquulkan ay noqoto in su'aasha lagu weydiiyo. Okay, su'aasha kale oo adigu lagu weydiin karo misan adiga saaxiibtaadii mise saaxiibka aad weydiin kartid waxa weeye are you chatty or lazy student? are you chatty student or lazy student? yacni waxa weeye are you ma tahay chatty mid hadal badan oo arday hadal badan oo lazy student misana ma waxaad tahay markaasi arday lazy oo caajis badan? qof noocee ayaa tahay? Okay, haddii su'aasha adigu lagu weydiiyo waxaad ugu jawaabaysaa sidan how do you think? sidaad u malaynaysaa ardayda qofka how do you think? sidaad u malaynaysaa siday kula tahay? pro walaal haddii waxa weeye gabar markay hadlayso waxay leedahay pro walaal wiil markuu hadlana pro walaalkiisa uu dhihi karaa sax. labaduba isticmaali karaan. Okay, haddii laakiin wiilku gabar uu la hadlayo wuxuu dhihi karaa markaasi sister halka pro ay ku qoran tahay. Okay, how do you think? sidaad u malaynaysaa pro walaal I am a talkative anigu waxaan ahay arday hadal badan grammarian student haddana arday markaasi naxwaha si fiican u garanayo
who kaasoo knows garanaya haddana waxa weeye the rules of English grammar sharciyada naxwaha Ingiriiska alla jawaab wanaagsan maxaad bixisay si qurux badan baad ugu jawaabtay su'aashii lagu weydiiyay oo ahayd are you charity or lazy wayna soconaynaa waxaad weydiin kartaa saaxiibta mise saaxiibka waxaad weydiin kartaa mise adigu waxa suurtagal in lagu weydiiyo su'aasha do you believe in adigu ma aaminsan tahay that the girls in gabdhaha are more open minded than the boys ay u maskax furan yihiin waxa weeye wiilasha qaar ama se wiilasha يعني waxa weeye ma aaminsan tahay adigu in gabdhaha qaar ay ka firfircoon yihiin ka maskax fiyo yihiin ka maskax wanaagsan yihiin ka maskax furan yihiin wiilasha qaar ma aaminsan tahay wiilka waxa weeye wuxuu difaacay wiilasha ayuu difaacay wuxuu leeyahay wuxuu ugu jawaabay no maya I don't believe that anigu ma aaminsan taasi and I disagree with you to that point waxa weeye kuma raacsani okay I disagree waa ka soo horjeed minaha and I disagree with you to that point waana kaaga soo horjeedaa qodobka misan fikradda oo ah inay gabdhaha qaar misan gabdhaha ay ka maskax furan yihiin wiilasha okay haddii su'aasha lagu weydiiyo haddii gabadha tahay oo su'aasha lagu weydiiyo waxaad leedahay yes ha I believe that anigu waan aaminsanahay taa because okay and I agree okay misan and I agree with you to that point waana kugu raacsanahay okay taasi haddii gabadha tahay su'aasha lagu weydiiyo waxaad leedahay yes ha I believe in that tawa amisana aniga and I agree with you to that point waana ku raacsanahay qodobka amisana fikradda waa marka adiga gabadha tahay su'aasha lagu weydiiyo ilaan waxaad u helinaysaa waxa weeye waa gabdhaha okay good wayna ka soconaynaa wiil marka tahay waxaad u helinaysaa wiilasha oo su'aasha jawaabta aad bixinayso waa jawaabta sare ee qayb sare noo qoran okay good waan ka soconaynaa su'aasha kale waxay tahay saaxiibka aad weydiin karto waxa weeye how many girls and boys are there in the class imse gabdho imse wiilal ayaa fasalka markaa jooga okay waxaa leedahay if I count more than haddii aan qiyaaso more than 22 boys in ka badan 22 wiilal and 25 girls iyo in ka badan waxa weeye 25 gabdhood are in the class ayaa fasalka jooga way marka are in the class ayaa fasalka jooga good wayna ka soconaynaa su'aasha iyo jawaabteedaba su'aashani kale waxay tahay how many days do you take the lessons imisa maalmood baad qaadataa casharada almost waad ka soo gaabinaysaa waxaa leedahay almost 5 days ku dhawaad 5 maalmood okay almost 6 days ku dhawaad 6 maalmood almost 3 days ku dhawaad waxa weeye 3 maalmood aad ugu jawaabi kartaa okay good hadda sample 5 days ma dhigi kartaa oo de waxa weeye adiga iyo waxa weeye joskaagi waynu ka soconaynaa su'aasha iyo jawaabteeda waxaynu gudbaynaa su'aasha kale iyo jawaabteeda su'aasha kale waxay ku leedahay why do the students take lessons sabtaba casharada ande sabtaba ardaydu cashar ay u qaataan de maxaa shar loo qaataa okay waxaad ugu jawaabi kartaa the main reason sababta ugu weyn that they are taking lessons that they are taking lessons ay u qaadanayaan casharo is waxa weeye to increase inay markaas sare u qaadaan okay their knowledge aqoontooda and to expand in markaasi ay ballaariyaan ay kordhiyaan مثلا and to expand in markaas ay ballaariyaan the mind maskaxdooda good okay sidaas aad ugu jawaabi kartaa okay sidii kale marka adiga ay ku furantahay wadada way kale marka ku furantahay waad ugu jawaabi kartaa anigu laakiin se jawaabta ayaan ku siinayaa good hadii su'aasha lagu weydiiyo waynu ka gudbaynaa waxaynu gudbaynaa su'aasha kale iyo jawaabteedii baynu gudbaynaa su'aasha kale waxay tahay what is practice bay ku leedahay maadaama maanta ay tahay maalmo wada sheekaysi su'aalaha isweydiinta badan waa su'aasha ugu caansan what is practice hal yiraahdo wada sheekaysi waxaad dhigi kartaa practice wada sheekaysiga is an exchange of ideas waxa weeye waa isdhaafsiga fikradaha yani waxa weeye in labada arday ee on the vertiga misana waxa weeye taagan barxad waxa weeye ardayda hortoodii taagan waxa weeye
waxa laga doonayaa marka uu sheekaysi sameeyaan in markaasi mid kale chance uu siiyo si markaasi okay fikradooda marka ay isku dhaafsadaan soo marka waxaan dhigi karnaa uu sheekaysiga waxaan leenahay is an exchange of ideas waa isdhaafsiga la isdhaafsanayo waxa weeye okay fikradaha good wayna ka soconaynaa chapter yar baad bixin kartaa dii lagu weydiiyo what is practice okay su'aashan kale waxay tahay what is education maxay tahay waxbarasho what is education waxbarasho maxay tahay so waxaan leenahay education waxbarashada is a system waa nidaam of gaining oo lagu helayo maxaa knowledge aqoon baa lagu helayaa skills xirfado baa lagu helayaa and experiences iyo khibrado baa lagu helayaa good saas lagu jawaabi kartaa adigu hadii lagu weydiiyo what is education waxbarasho maxay tahay is a system of gaining knowledge skills and experiences good waynu ka soconaynaa su'aasha kale aynu gudbaynaa ee jawaabteeda su'aasha kale waxay ku leedahay what is practice waa maxay no sorry what is peace maxay tahay nabad what is peace nabad maxay tahay sawiraysa hadii peace maxay tahay nabad maxay tahay loo dhaw waa de waxa uu maleynayaa su'aashan jawaabteeda waxa weeye in aad ay u sahlan tahay okay waxa leedahay peace nabada is the key of life waa furaha nolosha ha de waxa weeye hadaysan nabadaysan jirin badana waxa weeye nolol ma jirto weeye sidaas darteed is the key of the life waxbarashada iyo nabadda waxa sii sareeyo waxa waa nabadda way hadii nabad aan la haysanin tameel la isugu yimaado oo wax lagu baran karo ma dhici karto sidaas darteed waxa horeeyo markasta peace in nabad la helo kadibna waxa imaanaya markaasi horumar iyo barwaaqo good okay waxaan leenahay peace nabadda is the key of the life waa furaha nolosha and it plays an essential role waxayna ka ciyaaraysaa door muhiim ah ay ka ciyaaraysaa okay jawaabtaas aad bixin kartaa hadii loo weydiiyo what is peace nabad maxay tahay waxaa leedahay peace is the key of the life and it plays an essential role waxayna ka ciyaaraysaa door muhiim baad leedahay good waynu ka soconaynaa su'aasha xigta waxay tahay okay su'aashan waxay lid ay ku tahay peace ay nabad ku tahay peace ay markaasi lid ay ku tahay good waan ka soconaynaa su'aasha xigta jawaabteeda su'aashan xigta waxa weeye the next question waxa weeye what is war hal dagaal waxaan leenahay dagaal maxaa la yiraahdaa war waxaan leenahay the enemy war is the enemy dagaalku waa cadowga of the life ee nolosha it cripples wuxuu markaasi uryaaminayaa the human life nolosha bani'aadamka ayuu ciribtirayaa misana uu baabi'inayaa minaha wayna ka soconaynaa su'aasha ay jawaabteeda markaynu gudbaynaa su'aasheena xigta ay jawaabteedaba waxay ku leedahay su'aasha xigta what is ignorance hal yiraahdo jaahil misana jaahilnimo maxay tahay what is ignorance maxay tahay jaahilnimo good ignorance means one noun hadii la aan dhahnana ignorant waxa weeye jaahil bay noqonaya waxa weeye waa adverb oo falkaab waxa weeye sifo buu noqonayaa soo marka hadda waxa meesha noo qoran ignorant no ignorance ay noo qoran oo ah jaahilnimo so what is ignorance maxaa la yiraahdaa jaahilnimo maxaa la yiraahdaa waxaan leenahay ignorance jaahilnimada is lack of knowledge waa aqoon la'aan jaahilnimada lagu sheegay waxa weeye waa aqoon la'aan hadii dadka aqoon ay leeyihiin waxa weeye jaahiliin ma aha hadii aqoon aysan lahayn laakiin waxa weeye kuwan waxa leeyahay waa jaahiliin oo daxwo ma yaqaanaan waxaan leenahay marka ignorance is a lack of knowledge jaahilnimadu waxa weeye lagu sheegay waxa weeye waa aqoon la'aan understanding iyo isfahmi la'aan minaha in la isfaham waayo de waxa weeye dadku isfahmayaan hadii aqoon ay jirto dadku mutacallimiin ay yihiin aqoon-yahaniin ay yihiin just all isfahmaya hal baa imaanaya solution baa la keenaya laakiin dii wada jaahilin la wada yahay so okay it is so hard to understand with each other so inay marka mid la isku fahmo aad u adkaanaysa so marka waxaan leenahay ignorance is lack of knowledge and understanding good waynu ka soconaynaa su'aasha waxaynu gudbaynaa su'aasha xigta ee chapter-dan gudbaynaa waxay ku leedahay su'aasha what about English language bal ka waran luqadda Ingiriisiga ka waran ayadu siday tahay so su'aasha waxay ahayd waxaan leenahay what about English language bal ka waran luqadda Ingiriisiga ka waran siday tahay ayadu
وعلى هذا مركا هذه السؤال شلويد وسؤال مهمة صابتها you are English learners so it is so important to talk about okay or to focus on English language so okay حالنا مركا English language لغة إنجليزية is the language of science ولغة علمية okay مثل science كا so aviation هو علمية دوليمات كا computers computeration tourism دلحيس كا diplomacy and so on إيوه حلامتها good سأز لو جاي كرتا وعليه هاي English language is the language of science aviation computers tourism diplomacy and so on عليه هاي good وين كسر عني نحن نقول بين السؤال كلا يجواب تدا سؤال والسؤال شيء وقدم بيسي 10 كلمات تا إنه كسر جويننا إن شاء الله okay وحيقول هذا مركز سؤال حيته هاي why is English important so sababtee buu Ingiriisku uu ku yahay luqad markaasi muhiim ah why is English important alladii su'aasha lagu weydiin hada taagin aniga jawaaban ku haya isticmaal jawaabta jawaabta isticmaal oo waxa weeye telefoonkaaga internetka furo dan ka timna okay waxa weeye YouTube ka geli modern online college oo waxaad heli doontaa su'aasha jawaabteeda halkaas aad heli doontaa okay aynu ka jawaabno su'aasha aynu sii sheegno markaa sababta Ingiriisku uu ku noqday luqad markaasi caalamiya horta waxa weeye hadii aynu sare aynu ku sii laabano su'aasheeni hadeedii aynu ka soo jawaabnay hadii aynu jawaabteeda aan eegno Englishku wuxuu muhiim ku noqday waxa weeye markuu horeyso waa luqadda markaasi cilmiga badana maadooyinka sayniska waa luqad inta badan waxa weeye ku qoran waxa weeye waa English علمي دولمات كإنس بدن حوي إنجليش كقرن كمبيوترش وأنا وحوي لغة كلمة صارنا أو دوا إنجليش صارن أو دوا لغة إنجليش كمركا كقرن so أولو so برنامج so كلا درحيس كمركا جوك so وحلو سكولو ولا حريرة وحوي وسيلس كفهم هو إنجليش كوبدن نك الدبلوماسية دين السلوك كله okay sidaas oo jawaab hadii su'aashan uu weydiiyo jawaabta waad qaadan kartaa oo hadii kartaa because English language is a language of science aviation computers tourism diplomacy and so on مثلا hadii kartaa inshallah waxa leedahay because sababtoo it is an official of okay it's an official language waa luqad markaasi caalami ah okay oo rasmi ah okay which is mostly used taabadana markaasi loo ay isticmaalaan okay taabadana markaasi ay isticmaalaan loo taabadana markaasi ay isticmaalaan to communicate inay isku xiriiraan all over the world caalamka idil so ashirkeeni maanta halka ayuu inoogu dhanyahay so please ashirkan waxaan ugu tiragalay ardayda baranaysa luqadda Englishta aan doonay in markaasi aan ku caawiyo inshallah please hadii aad jeceshahay hadii aad ka heshay ashirada noocyadana so inshallah please nagu dhiirigeli subscribe noo saar wabillahi tawfiq maalin qurux badan maalin wanaagsan okay goodbye